waxaan si gaara wasaaradda waxbarashada iyo ay si gaara ula hadlaysaa saakay waalidiinta, macallimiinta, maamulada dugsiyada iyo dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Sida aad ka warqabtaan cudurka COVID-19 saameyn aada u weyn ayuu adduunka oo dhan ku yeeshay, annagana kama duwanin. Khaasatan bahda waxbarashada ee dalka Soomaaliya saameyn aada u ballaaran ayuu nagu yeeshay. waxaad la socotaan iskuulaadku hadda muddo 20 cishaa ay xiran yihiin. ujeeddada iskuulaadku u xirraaceen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan soo gaarinba laga tabaabshaysto, oo sida takhaatiirta adduunka ay noo sheegeen waxa u horeeyo hadda lagula dagaalamo uu yahay in muxuu ahaa foojignaantana la kordhiyo, muxuu ahaa kala fogaanta dadkuna aada loogu dadaalo. taas ayaa waxaa keentay bishii hadda lasoo dhaafay 19keeda laga soo bilaabo in iskuulaadkii ay xiraayeen. waxaad la socotaan in aan ku jirno waktigii sanad dugsiyeedku uu gabagabada joogay oo dhamaadka ahaa. marka hadday marsaa tahay in waxaad sanad dugsiyeedku qaabku ku dhammaanayo ay ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta iyo maamulada dugsiyada iyo dalladaha dhammaan ay u caddahay waa habboon tahay. sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu ee adduunka ku qaadanaysa, mar haddaan la ogeyn in aan ka tashanno waxa laga yeelayo sanadka soo socda iyadana waa dow. wasaaradda waxbarashada iyadoo waxaasoo dhan muxuu ahaa tixgelinayso, wadatashi ballaaranna la samaysay dalladaha iyo maamul goboleedyada, waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii 2019 2020 lasoo afjaro, iyadoo lagu salaynayo qiimeynta ardadu lagu qiimeeyey wixii ka horeeyey 19 Maarso sanadkan. arday walba wixii markaa qiimeyntii maalintaa uu joogay in lagu qiimeeyo, sanadka dambena loo diyaar garoobo sanad dugsiyeedkii sanadkan 19 20 oo halkaa ku dhammaado. wasaaraddu waxay tilmaamaysaa in macallimiinta, maamulada dugsiyada iyo dalladaha ay bilaabaan maalinta beriya wixii ka bilowdo in la qiimeeyo ardaydii, laguna qiimeeyo maalintii iskuulka la xiray meeshii la joogay oo ahayd 19 bishii Maarso sanadkan. arday walba qiimihii markaa uu helay uu ugu gudbo sanadka soo socda haddii eebbe idmo sanad dugsiyeedka 2021 ah. waxaa isweydiin leh maxaa laga yeelayaa imtixaankii shahaadiga ahaa, khaasatan dugsiga sare imtixaankii looga baxayay fasalka 12aad. wasaaraddu markay la tashi samaysay waxa ay go-aamisay in aan ka sii dhur sugno muddo kooban kadibna go-aan kale laga gaaro. laakiin wasaaraddu waxay diyaar u tahay berriba inay imtixaan qaadi karto. wasaaraddu waa diyaarsan tahay inay imtixaankii qaado, laakiin maadaama takhaatiirta iyo bahda caafimaadka ay ku adkaysanayaan in aan weli dad laysku keenin, wasaaraddu way hakinaysaa inta duruuftu kala caddaanayso.
sidaa daraaddeed wasaaraddu waxay soo jeedinaysaa in sida ugu dhaqsaha badan qiimeyntii fasalka 12aad inta aan ahayn la bilaabo lana soo dejiyo natiijada sanad dugsiyeedkii 2019 2020 intaa waa go-aanka wasaaraddu ay gaartay la gaartay dalladaha iyo maamul goboleedyada. waxaa intaas dheer oon rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaagno in ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto khaasatan waalidiinta iyo maamul goboleedyada iyo cid walba oo kale ay khuseyso in loo diyaar garoobo saameynta ballaaran oo ay cudurkan u yeeshay waxbarashada. sidaa ka warqabtaan waxaan la dhaadhacaynay oo aan runtii aad iyo aad ugu howlanayn kobcinta iyo kordhinta waxbarashada, khaasatan ardayda guryaha joogto inay ku soo biiraan inta wax qorto ee waxbarato. taa dhaawac weyn ayaa gaari doono siyaabo kala duwan daraaddeed. marka u horeyso wuxuu hakinayaa xawligii aan ku soconnay. marka labaad waxaa hakad gelayo fasalladii kordhayay, maxaa yeelay inta aad la socotaan 86-87 ardayga soomaaliyeed wuxuu wax ku dhex bartaa meel kiro ah. inta badanna meelaha kirada waxaa bixiyo waalidiinta. waalidkii haddii ardaygii loo soo celiyey waa garan kartaa waalidiintu haddaysan xilkas noqonin in ay dhici doonto inaysan bixin wixii ay bixin jireen. mar haddaysan taas bixinna saameynta yeelanayso waxaa wey inay kiradii iskuulka la bixin, macalinkii uu iska danaysto mar haddaan wax la siinaynin. markaa markay jiradu dhammaato meel lagu soo noqdo la waayo oo awal cadadkii dhiganayo waxbarashadooba yaraa ay soo korodho kii rabay xitaa inuu waxbarto meel uu wax ka barto inuu waayo. runtii waa saameyn aada weyn khatarteedana leh. waxaan rabnaa macalimiinta, maamulada iskuulaadka iyo dalladaha iyo dowladda soomaaliyeed oo wasaaraddani matasho inay iska kaashadaan in dhibkaas la yareeyo. baaqaas waxaan usoo jeedinaynaa bahda waxbarashada inta ka shaqayso o dhan in lagu foojignaado inay taa dhici karto. saameynta ay kaloo yeelanayso waxaa weeye in ardaygii uu hakad galo. dabcan waa dadaalaynaa oo howlo badan oo kale oo aan hadda idinka warbixin doono ayaa jiri doono, laakiin haddana marnaba wax lagu doorsanayo fasalka tegidiisa iyo macalinka iyo ardayga kulankooda wax lagu doorsanayo ma jiro. saameyn weyn ayay yeelanaysaa. macalinka qudhiisa saameyn weynay ku yeelanaysaa. maxaa yeelay haddii meeshii uu quudka ka helayay qayla ka yeerto waxaa laga yaabaa macalinkii inuu danaysto oo qofkii macalinka shala ahaa oo maanta noqdo mid ama dhismo ka shaqeeyo ama meel waardiye ka ah ama meel karaani ka ah. marka ama hayaamaba oo waddanka iskaga tago. marka saameyn weyn ay dhinaca macalimiinta iyo tayada macalinka ay ku yeelan doontaa arrintan hadday sii daba dheeraato, waana habboon tahay in lagu foojignaado. maamulka iskoolaadka laftirkooda saameyna ku yeelanaysa. maxaa yeelay iskoolkan inta badan iskoolaadka ardayda soomaaliyeed maanta gacanta ku hayo si aan xeendaab dowladeed ahayn oo aan maamul dowladeed ahayn ayaa lagu hayaa oo inta badanne dhaqaalahoodu aada u yar yahay. marka inay isbixi waayaan oo iswadi waayaan muddadan ayaa macquula. waalidiinta qudhooda saameynba weynay ku yeelanaysaa. maxaa yeelay nidaamkii ay ku tashan jireen oo ay ku tiirsanaayeen markuu khalkhal galo waxaa laga yaabaa inay caruurtii ay ka niyad jabaan oo guriga laiskugu soo wada aruuro. iyadan laftirkeeda saameyn weyn ayay yeelanaysaa.
waxaasoo saameyna ayaa fooda nagu soo haayo. ummad soomaaliyeed ahaan, bahda waxbarashada ahaan, waxaan maanta u baahannahay inaan isku tiirsanaano, inaan wada tashanno, inaan muxuu ahaa arrintan sidaan dhibkan u yarayn lahayn inaan falkeeda galno. annaga xukuumad ahaan qorshe weyn ayaa noo degsan. waxaa hadda socdo howl aada u ballaaran oo aan rabno in ardayga loogu geeyo waxbarashada guriga. maxaa yeelay waxbarashada waktigii fasal lagu soo noqon doono ilaa hadda nooma muuqato. marka ku talagal weyn oo ballaaran oo ku salaysan falsafadii ahayd khayr wax kaama dhibee shart u tooghaay, oo haddii hadda iskoolaadka lagu soo noqdo ilaahay aafadan dhinac noo dhaafiyo, hadda waa waxaan rabnay. laakiin hadday dhici weyso wixii la qaban lahaa ayaa hawsheeda ku tala jirnaa. waxaan abuureynaa nidaam ardayga haddii eebbe idmo lagu gaarsiin karo waxbarashadii guriga loogu gaarsiin karo, haddii loo maraayo internetka, haddii loo maraayo telefishinka, haddii loo maraayo radioga, iyo haddii intaa qofka aan haleeli karin qaab kale lagu gaarsiiyo aan u heli